maanta degmada Kaaraan waxaa ka socda howlgal ballaaran oo ay ka wadaan hay-adaha amniga qeybaheeda kala duwan sida booliiska iyo nabad sugidda. sida arkaysaan waxaa waaye maanta howlgalkan waxaa kalifay beryihii ugu dambeeyey ayaa ma aragtay mooryaan macwiisley u badan oo tuuga ah burcad ah ummadda inay dhacdo fasaxyada dowladda hoose ee guryaha ay u soo jartaan ka istaajiyaan shicibka inay handadaan goobahooda ganacsiga inay ma arkinoona ay xadaan amba ay jabsadaan habeenkii iyo maalintii. arrimahaasoo dhan markaan aragnay buuqi shicibka markaan dhagaysanay shacabkii ayaa saakay subaxdii hore kacdoon sameeyey. kacdoonkoodii annagoo ka jawaabayno dowladda dhexe ilaa iyo dowladda hoose jawaabta ay bixinaysa ayaa waxay noqotay in la soo qabto tuugadii. maanta ayaa ilaahay qadaray in shaqada la qabto, laakiin waxay ku habbooneed in dowladdu ay ka jawaabto xilli hore si aynan shacabka aynan u samaynin barordiiq ama kacdoon aynan u samaynin. sidaa arkaysaan waxaa la wado waxaa waaye waa ciidan. ilaah mahad iska leh nawaafajiyey maanta sidaa ka warqabtaan maanta bulshada degmada Kaaraan gaar ahaan qaybta ku ganacsada suuqa Kaaraan oo cabasho ah ayaa banaanbax nabadgelyo sameeyey, kuwaas oo ka cabanayay dhibaato ay maalmahan ku hayeen maleeshiyaad ku hubaysan qoryo, kuwaas oo isku wato tuuto iyo macawisyo oo dhibaato fara badan ku hay bulshada. waxaad ka warqabtaan maalmihii la soo dhaafay falal dil ah oo ka dhacay ay geysteen dadkaasi magacyadoodii iyo meelaha ay degan yihiin. waxaan la wadaagnay hay-adaha amniga, booliiska iyo nabad sugidda. saakay gurmad adagaana soo gaaray oo ka mid yihiin qaybta guud ee booliiska iyo qaybta guud ee nabad sugidda gobolka Banaadir. sidoo kale waxaana soo gaaray afhayeenka wasaaradda amniga iyo saraakiil kale. howlgalaa bilowday, dadkii ayagaa bilaabay inay dhaqaaqaan. tuugadii ugu waaweyneed ilaa 5 la qabtay. ninkii ugu khatarsanaay oo mashiibiya ah oo dilal 2 dil ka geysta degmada oo dad xabadeeyey oo fakad ahay oo waaran u jaraya gacanta lagu dhigay. dhammaantoodna sharciga la horgeey doonaa haddii ilaahay yiraaho. laga bilaabana maanta tuug gabalkiisa waa dhacay. hay-adaha amnigana maanta doorkoodii waa ay qaateen. shaqo fiicana loo qabtay bulshadii. aad iyo aad ugu mahad celinayna inta ka qayb qaadatay. waxayna noqon doontaa joogto in tuugadaasi sharciga la horgeeyo iyo qolada mashiidiyaha oo dilalka geystay dhammaantood waa lagu daba jiraa. maanta laga bilaabo askari aan ka mid ahayn askarta ka shaqayso nabadgelyada inaan lagu arki karin degmada Kaaraan. hay-adaha ay khusayso dhammaanna waa gaarsiin doonaa, gaar ahaan ciidamada militariga ah oo suuqa jaadka yimaado xilliga jaadka soo dhaco. waxaan uga digaynaa inay hub la yimaadaan maalin dambe, inay hub la yimaadaan suuqa Kaaraan. suuqaasi waa goob ganacsi, wax hubal lama ogolo. ninkii hub la yimaado asigii hubkiisa waa la qaadi doonaa. odaygii soo daba kaco oo tuug la dilay ka daba yimaadana asigana waa la xiri doonaa haddii ilaahay yiraaho. taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan taliska ciidanka nabad sugidda Soomaaliya iyo booliiska oo goobjoog ka ah halkan, waa u sheegnay in dowladda Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin dadka haysta ama ku labista dareyska ciidamada ee shacbiga waxyeelada u geysanaya. cid kasta oo la soo qabtana waxaan u xaqiijinaynaa nabadoonkii ka daba yimaada inaan isagana xabsiga u taxaabi doonno. tirada kii ugu dambeeyey waa kii hadda nala dul keenay, waa kii 6aad. dadka lagu eedaynayo in ay dhibaatooyinka ku hayeen iyagoo boosh wata oo macawiis wata, korna ka xiran mid ka mid ah dareyska ciidamada, in ay suuqyada uga adeeganayaan qoryo si ay uga awood sheegtaan shacbiga, taasoo aan ahayn mid sii shaqaynaysa. baaritaan ayaan arrintaas ku samaynaynaa si loo xaqiijiyo cabashada shacbiga ee ka imaanaysa ciidamo ama dad ku labisan dareyska ciidamadu ay wataan ay dhibaato u geystaan. waxaan ku celinayaa halkaas, waxaan bilaabaynaa baaritaan ku saabsan dhacdooyinka ay shacbiga noo soo sheegeen. haddii ay jiraan dad ku labisan dharka ciidamada oo suuqyada magaca dawladda baad uga qaata, si loo xaqiijiyo waxaan saaka ka dalbannay dadkii isu soo baxay inay
guryahoodii si nabada ugu laabtaan goobihii ganacsigana waxaad markhaati ka tihiin isla markii inaan furnay dhammaantood jidka oo ahayd jidka ugu dheer ee degmada Kaaraan isku xirana ee dhagaxyada iyo waxyaabaha ay saakay dadka soo dhigeen shacbigu inay naga ogolaadeen inay nagala qaadaan haddana gaadiidkii uu bilowday inuu ka shaqeeyo cid kasta oo ay ku caddaato inay qayb ka tahay amni darrada iyo xasilooni darrada iyo amni darrada ka jirta degmada Kaaraan cadaaladdan horgeynayna مستقبل راديو